asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada. waa mar kale iyo muuqaal cusub. maanta muuqaalkeena insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa taariikhdii boqor najaashi. sidaan la soconno, boqor najaashi wuxuu ahaa boqor ka talin jiray dhulka xabashida ama boqortooyadii la dhihi jiray aksuum. boqor najaashi waxa uu noolaa xilligii nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam, gaar ahaan intii u dhexaysay 610 ilaa 629 hijriyada ayuu noolaa. kaga bogo taariikhdiisa oo dhammaystiran muuqaalkan insha allah. magaca najaashi waa naanees loo bixin jiray ciddii boqor ka naqata dowladdii xabashida. wuxuu boqor najaashi noolaa xilligii nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam, gaar ahaan intii u dhexaysay 610 ilaa 629 hijriyada. waxaana magaciisa la dhihi jiray asxama ibnu al ajbar. najaashi aabihiis ayaa ahaa boqor ka taliya dhulka xabashida. kadibna wasiiradii iyo la taliyayaashii boqorka ayaa khiyaano ku sameeyey oo waxay isdhaheen boqorku wuxuu leeyahay hal wiil oo keliya oo madi ah, wiilkaasina waa madi, marka waa inaan dilnaa boqorka oo aanu isaga beddelkiisa boqor ka dhignaa walaalkiisa oo lahaa 12 wiil. kadib la taliyayaashii boqorka sidii ayay kaga dhabeeyeen, waxayna dileen boqorkii, beddelkiisana waxaa yimid walaalkiisa. najaashi xilligaas waxaa soo dhoweeyey adeerkii oo xukunka wax badan gacanta u geliyey. kadibna raggii aabihii dilay ayaa xanaaqay oo is dhahay hadduu boqorku dhinto wuxuu xilka u magacaabayaa wiilka najaashi ee uu adeerku yahay, markaana wuu idinka argoosanayaa oo wuxuu idin dilayaa dilkii aabihiis aad disheen. kadib la taliyayaashii ayaa u tegay boqorkii kuna dhahay, boqorow, waa inaad dishaa wiilkan najaashi ah. wuxuu yidhi boqorkii, ma intaad aabihii disheen shalay ayaad maantana isaga dilaysaan? waxay dhaheen, haddaad diidday inaad dishid waddanka ka masaafuri. nimankii dilay najaashi aabihiis ayaa wiilkiina qabtay oo ka iibiyey nin ganacsade ahaa, waxayna ku iibiyeen 400 oo dirham. ninkii baana najaashi ka haystay oo ka dhigtay addoon. haddaba ninkii boqorka ka ahaa dhulka xabashida ayaa mar uu roob da'ayay aqalka dibadda uga baxay si uu ugu qubaysto roobka. kadibna biriqda roobka oo ka timid xagga cirka ayaa ku dhacday, sidaas buuna ku dhintay boqorkii. markuu boqorkii dhintay ayaa wasiiradii iyo la taliyayaashii boqorku dooneen inay madax ka dhigaan mid ka mid ah 12 wiil ee uu dhalay boqorku, mise 12kuba waa doqomo aan hanan karin xukunka dhulka xabashida. dabadeedna raggii taladu ka go'aysay ayaa shiray, waxayna go'aansadeen inay dib u soo celiyaan ninkii najaashi ahaa ee ay addoon ahaan u iibiyeen. wayna soo celiyeen oo waxay ku fadhiisiyeen kursigii boqorka, iyagoo madaxana taajkii boqorka u saaray. waxa uu xukunka qabsaday isagoo 9 sano jiro ayuu xukunka qabsaday, kadib markii uu adeerkii oo boqor ahaa geeriyooday. wuxuu ahaa taliyihii boqortooyadii aksuum oo xukumayey intii u dhexaysay 614 ilaa 631 hijriyada. ninkii iibsaday najaashi ayaa u yimid boqorkii oo ku dhahay, boqorow, waxaa niman wasiiradaadu ka mid ah iga iibiyeen wiil addoon ahaa, iyagoo iga qaatay lacag. kadibna wiilkii ayay igala noqdeen ee lacagtaydii hay siiyaan, ama wiilkii aan iibsaday hay siiyaan. boqorkii najaashi wuxuu dhahay, ninkan ha loo celiyo lacagtiisii ama wiilkiisii, maxaa yeelay markuu ilaahey aniga mulkigayga ii soo celinayay igama uusan qaadin laaluush. la taliyayaashii boqorka ayaa bixiyey lacagtii laga qaaday ninkii ganacsadaha ahaa. arrintaas waxay ahayd wixii ugu horeeyey ee na tusaya cadaaladiisii iyo inaan dadka agtiisa lagu dulmi jirin.
dabcanna arrintaas waxaa uga markhaati kacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhahay boqorka xabashida agtiisa laydinkuma dulminayo. haddaba ninkaas wanaagsan markii uu dhintay uuna ku dhintay dhul gaalo oo aysan la joogin cid muslimiin ah oo ku tukata, nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo waxyi loogu sheegay ayuu amray saxaabadiisa inay isugu soo baxaan fagaaraha salaada ciidda si loogu tukado janaaso qof maqan, lamana sheegin cid kale inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam salaata janaasa qof maqan ku tukaday isaga mooye. wuxuu dhintay najaashi 632 hijriyada. boqor najaashi wuxuu ku aasan yahay meel dhowr saacadood u jirta magaalada makalle ee xarunta maamulka tigreega ee dalka Itoobiya. waxaa iyaguna habaashiisa sanad kasta booqda dad dalxiisyaal ah oo aad u tiro badan. tuulada uu boqor najaashi ku aasan yahay oo ah goobtii ugu horeysay ee masaajid Afrika ah laga dhiirigeliyo. waxaa iyaguna halkaas ku aasan qaar ka mid ah asxaabtii rasuulka ilaahay raalli ha ka noqdee oo sidai ugu hijroodeen ardul xabasha aan dib u soo noqon oo halka